ajendaha guud ee golaha baarlamaanka oo geeg usahaya akhrintii lamaad ee walku bedelowka hindishariyeedka shariga hanti dhowraha ee golaha ushorsheene guddiga maaliyadda iyo miisaaniyadda ee golaha waana qaar ku mid ah hubnaha golaha baarlamaanka iyo aragtida ku dhiibadeen hindishariyeedkan warna shuruudo aan ahayn waxba kuma baari karo cidina ma hor istaagi karto waa hay'ad madax bannaan oo kaliya ay la xisaabtami karo golahan qodobka 82aad iskaashi heer qaran ah xafiiska hanti dhowrka wuxuu soo saarayaa warbixin dhammaystiran wuxuuna u dirayaa golaha shacabka in lagu daro hay-adihii la baaray xafiisyada qaran ee heer madaxweyne iyo heer ra'iisul wasaare xafiisyadooda iyo hay-adii la baaray in lagu daro waxa kale oo iyada aniga in ay 10 sano oo khibradda inay loo baahan yahay 10 sano aniga lagu daayaan qabaa qof 10 sano khibrad wax ka yara haysto inuusan uusan hawshaas qaban karin qaba guud ahaan mudane gudoomiye waxa mar labaad boogaadinaya oo u hambalyeynaya shaqada wanaagsan ee guddiga maaliyadda ay soo qabteen waa mahadsantiin kulankii uu soo gadoomiyay gudoomiyaha baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Abdurrahmaan ayaa uu guddiga maaliyadda u la hadlay hindishariyeedkan iyo muhiimadda uu leeyahay sidee loo soo magacaabaa miisaaniyadiisa iyo shaqadiisa sidee buu ugu madax bannaan yahay baarlamaanku sidee buu adeegsadaa oo u hor yimaadaa meelahaasi waa meelaha laga dheehdo inuu baarlamaanku shaqadiisii hayo inuu hanti dhowruhu shaqadiisii hayo hadday meelahaasi maqan tahay waxa weeyaan dalkan weligii wuxuu ku jirayaa muxuu ahaayay magacaas loogu yeedho ayuu iskaga jiri doonaa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Mahad Abdalla Awl oo kulanka hiri guddiga maaliyadda ee baarlamaanka u safaray intii ha dhameystiraan akhrinta saddexaad ee sharigan iyagoo ka darayaan talooyinka geedka iyo hagajeediyeen hubna baarlamaanka afkaar aad iyo aad u wanaagsan oo waliba heer farsamo ah waa leedin siiyay xoghayntuna waa idin diiwaan gelisay wixii qoraal ahaa waxaan markaas waajibkiin ahaa inaad u soo diyaarisaan warbixintii akhrinta saddexaad ayaa hadda idin soo fuushay oo aad soo gelisaan afkaartii golaha kadibna aan u gudubno akhrinta saddexaad haddii uu ilaahay yiraahdo aad iyo aad baad u mahadsantihiin xildhibaanaduna waa ku mahadsan yihiin waajibkay guteen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shirku waa noo xoreeya baarlamaanka Soomaaliya uu ummadan hay howlo muhiim ah oo kor la qaadaw dhisowka howlaha qaranka Ibrahim Hassan Ali Ibrahim Jakarta TV-ga caalamiga Koonfur Galbeed Baydhabo